hadalka maanta ka soo yeedhay mas'uuliyiinta jaamacadda Camuud waxa uu daaranaa inay jaamacaddu bilaabayso takhasusaadka tacliinta sare ee masterta iyo PhD-da taas oo kahana qaadi doonta 6 kulliyadood oo kala ah kulliyadaha maamulka iyo maareynta waxbarashada beeraha caafimaadka kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo sharciga iyo shariicada munaasabada dhacdadan taariikhiga ah lagu shaacinayay waxa goobjoog ka ahaa wafdi wasiir ah oo horkacaysay wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed oo arintan ka waramaya ayaa waxa uu yiri xafladan maanta in isugu nimaday waa daahfurka barnaamijka postgraduate-ka oo marka hore ku bilaabmaya master's degree 6 kulliyadood oo master's degree bisha September biidillah samayn doona oo ilaa 17 takhasus samayn doona aad iyo aad baan isugu kalsoonahay doorkan 6 kulliyadood laba ka mid ah PhD bay bilaabi doonaan biidillah bisha February sanadka soo socda ayay bilaabi doonaan ama kana cidii candidate ay soo diiwaangelinayso oo banaantahay concept noodun bay sii qori doonaan insha Allah sidoo kale wasiirada wasaaradaha caafimaadka cadaaladda iyo beeraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Marwo Adna Aadan Ismaaciil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay qorshahana wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Marwo Samsam Cabdi Aadan oo iyaduna halkaas ka hadashay ayaa waxa ay tidhi runtii Camuud waxa weeyaan waa meeshii jaamacad laga bilaabo mar haddii jaamacad laga bilaabay waxaynu filaynay in wixii la bilaabayo waxbarashada iyadoo ay noqoto tii inoo bilowda inta dambana ay ku dayato runtii way ku guuleysatay Camuud waxay muujisay inay wax badan wadanka laga qaban karo haddii dadku isku tashado oo la ilaawo in dibadda la wax laga sugo maantana tan ay ka filaynay ugu horreysay oo ay sidoo inay programyada postgraduate studies ay maanta iyagu u bilaabaan jaamacadihii waxa weeyaan hambalyo oo waxaynu ka filaynay waa waxay u taagan tahay Camuud waa waxay experience ku soo heshay waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad baan u hambalyeynaya Camuud iyo reer Awdal Abdul Ali Yusuf on Cable TV Borama